أديك كوب أديك حاجة أديك كوب هي ولا غلط حاجة ولا قرع حاجة والله حاجة يا أخي أوكي ما شاء الله wuxuu leeyahay timirtan suldaanku waxaan hadda ka shaqeynayaa anagoo ka xawilaya beer si aan ugu xawilo meel kale halka waxaan ka fujiyay guruun markaan leeyahay waxa la yiraahdaa geedka weyni ka hoos baxa ayaa la yiraahdaa guruun halkaas aan ka fujiyay kan labaad insha Allah waxaan rabaa inaan sii fujiyo kan saddexaad sii fujiyo geedkaas hal geed oo halka lagu beeray buu ahaa hadda waxaan ka fujiyay geed waxaan ka sii fujinayaa insha Allah afarta geed oo kale midba meel baan ku ridayaa sida geedkii oo meeshiisa yaala iyo 5 geed oo kale oo soo ka baxay ay noqonayaan guruumada markaan ka wada fujiyo waxaan sameeynayaa insha Allah meesha laga fujiyay waxaan ku riixayaa carro si aan geedku uga neefsano geedka laga fujiyay aan dhibaato u soo gaarin marka kuwan waxaan geynayaa meel kale oo xawil baa la yiraahdaa meel kale beer horlaan xawilayna insha Allah Allah nagu guuleeyo geedkan waxaan ka fujiyay hal afarta dame waa fujinayaa dhirta kale waan ka soo fujinay waxaan sameeynaynaa marka beer hor la weeye geedkaas oo kaliya 5 xabo marka laga fujiyay isagoo meeshiisa 5 baa hadda laga fujiyay sanad kadib ama 2 sano kadib in 6 7 hor laga fujiyaa suuragal ah marka dadka ay dhageysanaya oo codkayga garanaya Soomaalida ah waxaan leeyahay timirtu waa wax qaali ah hadda meeshaas aan anagu u soconno isha wali baa la yiraahdaa wowgay labaad baa beeray timirta oomay way ku taala aniga geed kuma ridin abahay ma beerin abihi ma beerin waxaan cunaa hadda isticmaalaa waa beertii Allah yarxamo aw cali oo ah awowgay labaad marka timirtu waa wax qaali ah waa wax muhiim ah waa wax manfac aduun iyo mid aakhiraba ku jiraanin marka waxaan leeyahay Soomaalidu waa inay beer timirta beertaanin dhamaan beeraha dalag oo dhan laga marmaan way laakiin timirtu waa shay muhiim ah waa shay ah sadaqada jaariga ah oo waxa weeye awowgeeyii labaad ayaa timirtiisa hadda cunaya mantadaas waxa weeye abahay iyo aabihiisna way cunayeen ilmahayguna hadda ay cunaaneen waxay yihiin oo joogan iyo waliba ilmahan awoow ahaa marka hadda beerta aan ka shaqeynaynaa waxa weeye beer halkan aan ka xawilayno oo waxa weeyno meel kale insha Allah warbixintaas hadda waxa weeye sidaas ayaa beerta marka loo kala xawilaa guruumada marka laga fujiyo geedka waxa loo sameeyaa carra loogu celinayaa meesha hadda way muuqataa oo wataas meesha laga fujiyay hadii kale geedka dib baa soo gaaraya in uu siga weynaa la waayaa suuragal ah wana mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم Soomaalidu waxay tiraahdaa intay beer ku siiso baxda kuma siiso ama sidoo kale beer falo aad baahi beeshida Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhul buu ina siiyay hodana oo bacrina oo wax walba ay ka baxayaan wuxuu ina ku daray biyo wuxuu ina ku daray iimaan iyo Allah aqoon buu ina siiyay marka inaynu ka faa'iideysano Cabdikariin waa mahadsan yahay maanta 10 waxaynu ka baranay timirta iyo sidii loo beero hal geedo timira qofkii beera markii ay geedkaas u dhalo sanad ama 2 sano kadib geedkii 5 geed oo kale ayuu u dhalayaa marka wuxuu haystaa 6 geed waxa laga yaabaa sanad 2 sano kadib 4 sano kadib inuu haysto 6 lagu dhuftay 5 ama 6 lagu dhuftay oo kale 30 ilaa 36 geed oo timira inuu yeelanayo geedka timirta markuu halka gacan oo si fiican u dhalo waxa laga yaabaa inuu ilaa 10 ama ka badan gacmood ama khayl uu soo daayo midkiiba 100 kiilo ama 200 kiilo ay noqonayso waa hodantinimo Ilaahay ina siiyay dhulkeena timirta ka baxda hadii aynu ka shaqayn lahayn oo aynu sarci lahayn oo aynu faxli lahayn oo aynu sidayta uga faa'iideysan lahayn waxa hubaala timir dibadda leeyno kama keeneen inaga timir dhoofin lahayn marka inaynu dhulka ka faa'iideysano waxaynu cunaynaa dhulka aynu ka soo saarno ee aynuna baranno sida aynu ugu baahi beeli lahayn dhulkeena khayraadka ku jira iyo nimcada ku jirta saynu uga soo bixi lahayn oo aynu beeran lahayn waxaynu cuni lahayn dhulkeena uga soo saari lahayn insha Allah ta'ala 10 badan ayaynu ka qaadan doonaa timirta iyo sida ay tahay hodantinimadeeda wax soo saarkeeda iyo sida loo beero iyo sida looga shaqeeyo waxa weeye geedkan sidaad u jeedaanin waxa laga soo fujiyay geed kale oo uu ka baxay guruun weeye geed ku yaalay banaankiis meeshii laga soo gudbiyay geedka xididkiis waa ka meeshuu ka baxay halkaas laga jaray carrada u jeedaan baa la saaray waxa weeye waa ka xididka rabo inuu baxo insha Allah waa ka halka yaalay
waxa la sameeynaya hadda waan qaadaynaa waxaan rabaa inaan idin tusiyo qaabka godka loogu ridayo hadda waa sidnaa waxaan u soconnaa godkii aan ku ridi lahayn بسم الله wareegha بسم الله sidaa u jeedaanin geedkaas handabad buu leeyahay handabad soo gudniinkaas la yiraahdaa sidaa loogu tuurayaa bisinka loo qabanayaa sidaas loo qaabilsiinayaa wataas sidaas qolo jeedana qorxa dhaca ama qibladaba marka ka bacdi waxa lagu soo celinayaa carrada socli sida caadi carrada ku soo celi carradaas lagu soo celinayaa markii carrada sida u jeedaan in loogu soo celiyo waxa la sameeyaa birtaas la gelinayaa sidaas loo xirayaa sida waxa weeye hadii biyo iyagoo dawaale ah tagaaneen biyo iyagoo caad u dareeraya ay tagaaneen geedka meesha arkaysan laga soo jaray uu qurmaya oo xumaanaya waxa la rabaa biyo inay ku tagaaneen rays qoyaan iyagoo qoyaan rays aan oo socon sidaas insha Allah geedka loo beeraya ilaahay waxa ka rajeynaa in uu guuleeyo waana mahadsantiin waan salaamaya dhamaantiin geed walba oo timira waxa ka baxa geed kale kan guruun baa la yiraahdaa sidaan casharka hore ku soo qaadanay waxa laga soo gooyay geed timira galabta waa la talaalayaa dhulka ayaa lagu ridayaa geed walba oo guruun walba oo la soo gooyo xagal daacad sidaas uu leeyahay sida dhinacaan hadda ka muuqato oo kale dhinacaas xagal daacada baasaa loogu taagayaa dhinacaasna waxa la xijinayaa qiblada geed walba sidaas loo beerayaa bismillaahir rahmaanir rahiim والبي متى اساس ولي تك دغح مسو غريا خوغا تك ولي حوت قوه الله بس ايد اسكت قعد لا تناول شيء geedka markii dhulka saal loogu rido waxa la rabaa in la cufo oo geedka aysan biyuhu u tagin isagoo aan cufnayn waxa lagu cufayaa ciidii laga saaray iyo midda hareeraha ku jira isagoo cufan oo adkaaday ayaa waxa la rabaa in biyaha lagu furo hadii isagoo aan cufnayn oo aan adkaan biyaha lagu furo geedku waa qurmaya biyuhu waxa la rabaa sayr inay rays ugu tagaan ama waxa la yiraahdo drop irrigation oo kale dhibic biya inay u tagto oo rays samooye lama rabo هلا خذ الكلب بسم الله الرحمن الرحيم تمرتا aragtay macaanka badan ee Ilaahay barakeeyay waxa weeye waa ta geedkeedii cilmigaas ayuu soo maraa oo lagu beeraa qofkii timir beerta waxay la tahay inuu baahi beelayo marka dhulkeena Soomaaliyeed oo dhan waa ay ka baxaysaa timirtu meel walba hadda gobolka bari gobolada bari ayaa ugu badnaa waligood taariikhda laakiin hadda waa la bartay dhulkii meel walba timirtu waa lagu beerayaa marka waxa weeye in timirta la beerto oo timir dambe oo Iiraan iyo Carab inoo ka timid aynaan cunin ee timirta dhulkeena busrta la yiraahdo aadka u macaanka badan aynaynu cunaa bismillaahir rahmaanir rahiim bismillaahir rahmaanir rahiim
niman shaqaysan shaa waa ka xaaraan baa la yiri sidoo kale waxa la yiri beer falaad baahi beeshide waxa kale oo la yiri intay beer ku siiso bahda kuma siiso timirtaan arkaysaan timirteeni dalkeena hooyo ka baxday naas loo aad inta laagta waa aragtay beerta xeela ayay ka baxday beerta coomaaya waxay ka baxday beerta coomaayo halkaan aan joognaana waa maqor halkaan beertaan waa beerta uu sameeyay wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta Soomaaliya Aadan Maxamed Cali ninkan waa wasiirka walaalkiis Maxamuud Maxamed Cali beertaan waxaan timirtaan waa timirtii awowgood Cali uu beeray saddex qarri oo Cali uu beeray saddex qarri ayay beeran tahay timirtaas oo la kala dhaxay jiilkii afraad ama shanaad ayaa dhaxlay marka dhulka hodanka baynu haysanaa waxaynu cuni lahayn khayraadkiina kala soo baxno waxaynu baranay timirta iyo laga soo bilaabo geedkan gruunka la yiraahdo markuu geedka ka baxo markuu weynaado shinkiisa gaaro marka laga soo gooyo sida looga soo gooyo qaabka loo talaalo hadhow waxaynu u tagi doonaa qaabka loo faxlayo oo waxa weeyaan loo bacriminayo miraha iyo sida looga guranayo busurta iyo timirta intaba marka barasho wanaagsan qof walba casharkaasna baro beertana beero timirtana waxa weeyaan ka faa'iideyso waa maasantiin waa nimcada dalkeena